بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن داوديال كوسو دوادا ورك التلفزيون كعبود وهذا هاي وكالات كداوتان حرنتي سدحه دغمدا عبود waxaana la diyaaranigo Maxamed Cabdi Jalaqsane qodobada aad ku daawan doontaan alla idinkeena idinku soo gudbin doona waxa kamida Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo booqday qaar kamid ah isbitaalada dawladdu maamusho ee magaalada Muqdisho ururka al-shabaab oo miina ku xiray gudoomiyaha degmada Jalaqsi hoyga uu ku lahaa halkaasi iyo sidoo kale maamulka Galmudug oo ciidamo kala dhex digay maleeshiyaad ku diray deegaano Galmuduga qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaynu idin haynaa marka horese qadar adeega bulshada dunida ku noolnahay gudaha iyo dibadda waxa jooga diyaarad ka shaqeeya dalkeena daruuraha korkoodana dul sabeeyo oo idin deegaankeena timid bay u dambeysay maandeeq ilaah mahadi weeye ha u dayma la'aanina shaqaale loo diyaarsho oo adeega daacado dulqaadkoodu badan yahay dayacaynin amaanado macmiishooda daryeela ku diyaar ah halkaan oo ilaah mahadi weeye dayuuradeena maandeeq ha u dayma la'aanin haddaba xafiiska diyaaradda ee maandeeq airline waxa uu ku yaala bartamaha magaalada agagaarka hodan global wixii faahfaahin dheeri ahna waxaad kala xiriiri kartaa telefoon nambarada shaashada saaran maandeeq airline maantay allah magane maantay rabay ahaatee baan sugayno allah magane maantay maamulka Galmudug ayaa waxa ay ciidamo kala dhex dhigeen laba maleeshiya beelood oo ku dagaalamay qaybo kamid ah maamulkaasi dhulka uu maamulo waatana wariyahayaga Xamdilaki Maxamed Daahir oo qodobkaasi inoo faahfaahinaysa ciidamada nabad sugidda iyo kuwa sirdoonka qaranka qaybtooda ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa ku guuleystay in ay kala dhex galaan laba maleeshiya beelood oo saaka ku dagaalamay deegaanka Aruuris oo dhaca duleedka bari ee deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud dagaalka labada maleeshiya beelood oo salka ku haya arrimo la xiriira dhulaha ayaa waxa uu geystay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac saraakiisha ciidamada hogaaminayay ayaa kulamo lagu xalinayo colaadda beeleedyada waxa ay la qaateen waxgaradka labada beelood iyaga oo u sheegay inay doonayaan in si nabad ah ay ku wada noolaadaan deegaanada Galmudug ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ku soo batay dagaal beeleedyada waxaana dagaaladaas ay sababeen khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo barakaca boqolaal qoys Xamdilaki Maxamed Daahir CWTV degmada Caabudwaaq Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu booqday qaar kamid ah isbitaalada magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay gacan ku hayntooda ay leedahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta waxa uu booqday qaar kamid ah isbitaalada dawladda sida gaarka ah ee ay u maamusho si ugu kurgalo adeegyada caafimaad ee ay u fidiyaan bulshada Soomaaliyeed maadaama xukuumaddiisu ay ahmiyad gaar ah siin doonto adeegyada caafimaadka ee dadweynaha war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in maamulada isbitaalada Martiini Banaadir iyo Yardimeli ay warbixin ka siiyeen Ra'iisul Wasaaraha adeegyada caafimaad ee ay siiyaan shacabka Soomaaliyeed iyo caqabadaha ka jira isbitaalada dawladdu ee Martiini iyo Banaadir ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka waxa ay ka helaan adeegyo bilaash ah waxa uu xusay Ra'iisul Wasaare Rooble in xukuumaddiisu ay mudnaan gaar ah siin doonto tayeynta adeegyada caafimaadka ah ee laga helo xarumahani Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu uga mahadceliyay maamulka dhaqaatiirta iyo shaqaalaha shaqada wanaagsan ee ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed kuna dhiirigeliyay in dadaalkooda ay si laba jibaaraan ka sokow booqashada Ra'iisul Wasaaraha ee isbitaalada Martiini Banaadir iyo Yardimeli ayaa waxa jira in wadooyin dhowr ah loo xiray isla markaana shacabka magaalada Muqdisho badankoodu ay maanta lugeynayeen iyaga oo arintaasi wala xoogan ka muujiyay gudoomiyaha degmada Jalaqsi ayaa hoygiisa waxa miina ku xiray xubno ka tirsan ururka al-shabaab sida ay qodobkaasi inoogu faahfaahinayso wariyahayaga Xamdilaki Maxamed Daahir
xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga booliska degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan iyo hoyga gudoomiyaha degmadaasi waxaana weerarkaasi ka dhashay khasaaro kala duwan goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in uu dhacay dagaal dhex maray ciidamada maamulka degmada Jalalaqsi iyo kuwa al-shabaab kaas oo geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof ayaa sheegay in al-shabaab ay miinooyin galiyeen hoygiisa ku yaala degmada Jalalaqsi balse uu isaga ka maqnaa sidoo kale waxa uu sheegay in guriga ay ku sugnaayeen 3 carruur oo isaga uu dhalay balse aysan waxba ku soo gaarin miinooyinka lagana soo badbaadiyay gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Nuur Cagajoof oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee degmada Jalalaqsi ay ka hortageen weerarka ay soo qaadeen ururka al-shabaab Xamdillah Maxamed Daahir CWTV magaalada Caabudwaaq guud ahaan daawadayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa warkii telefishinka Caabudwaaq anigoo Maxamed Cabdi Jalaqsan ayaa idin la socodsiinayay aniga intii kala qayb qaadatay batan iyo kulanka iyaga xiga midkan waxaynu idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo nabadu waa furaha nolosha haddii aadan nabad haysan ma helaysid fursad aad wax ku baratid ma shaqaysan kadib ganacsi ma furan kadib ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo jaahilnimo iyo alla ka cabsi la'aan baa dulmi dhasha dulmi waa wuxuu dhalaa qabyaalad baa waxay dhashaa qaran la'aan qurux la'aan qaynuun la'aan fursho la'aan qadarin la'aan qabad la'aan moogta qas iyo qalalaasta iyo qawrac iyo qax iyo hoog iyo boodhan bay dhashaa ebo warligo nabada ebo ummato nabada ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo wanu manahi ebo amis nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay ducooyinkiisa waxaa ka mid ahayd inuu yidhi allahuma inaa nas'aluka al-amna wal-iimaan ilaa waxaan ku weydiisanaynaa iimaan iyo ammaan marka ammaanku waa shayga keligiisa oo ka qayb qaadan kara qofku inuu waxa weeyaan wax fiican oo la taaban karana uu la yimaado waa nolol oo nabad la'aan waxba maana baranin heerka ammaanta joogana ma aanan gaarin haddii aan nabad haysan shirki la qabtaba adoshina warshoosh loo nabad dashaasha iyo shikaakiyo dood shuhuubala iyo shaloombiyo muro waxsiishida iyo la shahoor hadal shakar samaho adooshayba sheegta nuxur daran la sharshar meel shidee noqoto shacbigu mar rabe ha laga shiro shira danta guud u shuureeyo noo sheega wanaag la shaacin karo ushimihi sharwado shib naga dhahaa intay garmaqaate iyo garaad xumay noo tasheen maxaa dhacay guuldariya gafiyo ceebaan harayn gadoodkii muxuuna baday maxaa gacal kala ambaday maxaa gaariyo ninkeed isgoobaan war iska hayn maxaa odag guuyo dhaqay u go'ay gaajiya haraad maxaa reer gaan ahaa gantoomee gaban ka haray maxaa guur seegtay inan maxaa godob layska galay maxaa gashi layska dhacay maxaa guryo nabad ahaa la gubay ee galangashaa maxaa gacal iyo dadbaha colaad loo kala guntee isgowracay sabab la'aan dagaalkii lama gartaan muxuu go'ashayna baday nabadee macaanee neecaw udgoonee iyo barwaaqadan lagu qaboobay itanaasir maano laga jaqo nafaqaday naxariista eebahay niyadana u rooney naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn ugu naawilayse